kulanti habboon daawadayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiinaba waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida. Caawase waxaynu ku eegi doonaa warbixin gaar ah oo ka hadlaysa madaxweyne Farmaajo oo soo saaray wareegto uu gabi ahaanba shaqadii kaga joojiyay wasiirka koobaad ee dalka Maxamed Xuseen Roble. jawaab celin ka soo baxday xafiiska Roble iyo sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa ciidamo ka tirsan kuwa Amisom oo caawa lagu daadgureeyay madaxtooyada Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka dhex soconaya gudaha xarunta Villa Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ee khilaafkan iyo falcelinta kala duwanaa ee ka dhashay ayaan idin soo gudbin doonaa oo aad barnaamijkeenan gaarka aad kaga bogan doontaan haddii uu qadaro. si aan warbixintan u guda galno waxaan idin ka codsanaynaa inaad muuqaalkan share gareysaan, like-ta aad saartaan, sidoo kalena aad nagu soo biirtaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada inagu xiran. aynu ku bilaawno. warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa shaqadii looga joojiyay wasiirka koobaad ee dalka Maxamed Xuseen Roble. waxaase jawaab celin aad u kulul ay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble. balse marka hore aynu eegno wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyay awoodii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo markii uu arkay talaabooyinka qalafsan dastuurka ku meel gaarka ah ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble sida ku cad qodobka 87 xarafkiisa B iyo C qodobkiisa 9 xarfaha B, C iyo E markuu ka wacday waajibaadka loo igmaday xukuumadda ay ahaa ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka sida ku cad amaba ku cadeed khudbadii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ka jeediyay golaha shacabka 1 May 2021. goluhu uu u tixgeliyay soo jeedintaasi markuu arkay in ra'iisul wasaaraha uu qaadayo talaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jiheyn kara qalalaasa siyaasadeed iyo markuu arkay in wasiirka koobaad uu sameynayo isku day ku xadgudubka xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awoodda si qaldan u isticmaalida hay'adaha qaarkood. markuu xaqiiqsaday in ra'iisul wasaaraha la tashiyo iyo wada shaqeyn la lahayn madaxweynaha isagoo oo ku dhawaaqaya go'aano ku kali ah oo aan waafaqsaneyn shuruucda dastuurka dalka taasi oo ay ka dhalatay xil gudasho la'aan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. maadaama madaxweynuhu yahay astaanta midnimada qaranka, ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi'da asaasiga ee dastuurka. qoraalka ayaa inta la raaciyay madaxweynuhu waxa uu xeeriyay qodobadan maadaama wasiirka koobaad ee xukuumadda uu jabiyay dastuurka ku meel gaarka ah waxaa la hakiyay awoodaha wasiirka koobaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadis ama xil magacaabis inta la dhameystirayo doorashooyinka dalka ah oo ay u xil saaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaaban. 2 inta lagu guda jiro xaaladan hay'adaha kala duwan ee dawladdu waxay sii wadayaan howlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee laga maarmaanka u ah socodsiinta howlaha xukuumadda sida waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka ku meel gaarka ah oo si cad u qeexaya in wasiir kasta uu isagu mas'uul ka yahay howlaha wasaaraddiisa ayna tahay in lagu tixgeliyo iyagoo aan loo dhaqaaqi karin xilka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhameystirayo doorashooyinka dalka. qodobka 3 ayaa ku qeexnaa maadaama ay dhameystirmeen dhismaha guddiyada doorashooyinka heer federaal ee fiid iyo heer dowlad goboleed xalinta khilaafaadka si buuxdana loogu heshiiyay raacyada miisaaniyadaha qorshaha amniga doorashooyinka iyo dhammaan waxyaabihii ay ku xirneed qabsoomida doorasho waafaqsan heshiiskii 27 September 2020 iyo habraacyadii lagu xaliyay tabashooyinka ka soo laabtay 27 bishii May 2021 lana guda galay doorashooyinka labada aqal. sidaa daraadeed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay'adaha ay qusayso
howlaha doorashooyinka inay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay villa Soomaaliya una muuqday in gebi ahaanba shaqadii looga hakiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. dhinaca kale qoraal si aad loo dhowrayay oo goordhow ka soo baxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa sharci darro loogu tilmaamay tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ee la xiriirtay in laga hakiyo guud ahaan awoodaha shaqo ee wasiirka koowaad ee dalka Maxamed Xuseen Roble. warqadan oo si weyn ay u dhowrayeen dadka sida weyn u isticmaala baraha bulshada iyo warbaahinta ayaa lagu sheegay in tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay si weyn u dhaawici karto geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana ay carqalad ku tahay dadaalada ra'iisul wasaaraha dalka ugu jiro in Ikraan Tahliil qoyskooda ay helaan cadaalad iyo sidoo kale in la dardargeliyo howlaha geedi socodka doorashooyinka dalka. qoraalka ka soo baxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo lagu qoray luqad adag ayaa looga digay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo inuu horseed u noqdo burbur dalkan uu galo mar kale. marka laga soo tago jawaab celintan degdeg ah ee ka soo baxda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa jirta in ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga ee AMISOM caawa lagu daadgureeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka iyo kan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo. waxaa laga cabsi qabaa in gacanka hadal uu gaaro khilaafkan maadaama madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhawaanahanba ay soo saarayeen warqado iska soo horjeeda. waxaase dadka ay ka digayaan in dagaal sokeeye ay dalka u horseedaan khilaafka ka dhex jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka. ciidamadan ayaa la sheegay inay hakad geliyeen dhaqdhaqaaqyada guud inta u dhaxaysa xafiisyada madaxweynaha iyo ka ra'iisul wasaaraha dalka. faaciya ayaa lagu kala jiraa madaxtooyada waxaase suurtagal ah in saacad walba ama daqiiqad walba gudaha madaxtooyada uu dagaal ka dhaco. waase tan laga digayo oo ciidamada AMISOM ay u gaareen gudaha madaxtooyada dalka. warar soo baxaya ayaa geesta kale waxay cadeynayaan in golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulan degdeg ah ay ka yeelan doonaan maalinta beriya si ay kaga arrinsadaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo markan weji cusub yeelatay. kulankaas ayaa lagu wadaa in warbixin guud looga dhageysto ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan oo si guud faahfaahin uga bixin doono khilaafkan iyo wax salka uu ku hayo. golaha ayaase laga yaabaa inay qaataan go'aano degdeg ah oo tallaabo looga qaadayo hoggaanka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. marka laga soo tago kulanka golaha ammaanka qaramada midoobay xaaladda guud ee caawa magaalada Muqdisho ayaa ah mid cakiran waxaase la dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan. inta badan ciidamadii duufaan ay ku sugnaa hareeraha taalada daljirka Dahsoon ayaa caawa heegan buuxda la geliyay waxaase la sheegayaa in dhaqdhaqaaqyada ciidan ay soo tarayaan. waxaase la sheegayaa in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ay ka soconayaan wadooyinka caasimadda magaalada Muqdisho. saaxiibada qiimaha badan warbixinteena gaarka ah waynu caawa ku eegnay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waynaga inta daawade maxay kula tahay in xal looga gaari karo khilaafkan. wixii aragti aad qabto qaybta hoose inoogu reeb warbixintan lacayna intaanu dib u kulmi doono nabaadiino.